anigu waxaan ku taagnaa sharciga in la ilaaliyo iyo dastuurka oo aan u haysano maxaa la yiraahdaa legislation sharci baarlamaan ka soo baxay oo aan nagu wada saxiixnay iyo dastuurka iyo guddiga doorashada oo intaasoo sano loo tababarayay hawsha inay qabtaan arrintaas runtii waa nagu fogaatay waa isku mari weynay saddexdii bilood ee la soo dhaafay wax kale kamayn hadlayn waxaan isu sharxaynay faa'iidooyinka ee leedahay qof iyo cod iyaguna waxay sharxayeen inaysan hadda aan la samayn karin oo aysan diyaar ahayn oo loo baahan yahay waqti haddaba maxaa dhacay marka oo aan ku tanaasulay waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeeni uu lumo anoo ku adkaysanayo qof iyo codkii maxaa yeelay sharci baan ku taagnahay dastuur yaan ku taagnahay iyaguna ay yiraahdaan ka qayb gali mayno electionka oo waa qaadacnay waa boycott galeen macnaheedu waxay tahay Somaliland de awal bay gaar u taagneed markaana inaan waayo labadooda kaliya ma ahayn shantoodaba waa isla socdeen aan sheegay runtii waxa ay soo baxday marka aniga shaqada la iidmaday aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka markii ugu horeysa isku hayo inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed markaas dawladnimo iyo doorasho laga hadli karaa laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin anagu ma galayno waxaan ka shaqeynay kala qaybin yaan ka shaqeynay tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado uu soo farageliyo inaan anagu waxayna ha xumaato ha samaato anagu aan gaarno go'aankeeda mas'uuliyadeedana aan qaadano laakiin marnaba shisheeye inuu soo dhexgelin uu soo kaay soo jijiidin taasna inaan ka fogaano waxay ii keentay marka inaan qaato tanaasulka marka maxaa yeelay inaan dalka isku hayaa muhiim ah marka ugu horeysa uusan kala tagin waana runtii waxyaabihii muddooyinkii la soo dhaafay culayskii dalkan saarnaa yay ahayd dalkan in la kala fogeeyo dadkiisa la isku diro shisheeye uu ku dhex jiro dhibaato laga dhex abuuro xaqiiqatan waxaana ka shaqeynayay dalal shisheeye iyo shakhsiyaad dana gaar leh ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan shisheeye oo xaqiiqo ah muddooyinkii aan soo marnay intay rabta ha ahaato ummadda Soomaaliyeed ma aha wax ka yimid wixii dhibaato oo ka dhex dhacay waxay ahayd wax kor looga keenay dalalkaas aan sheegayana danay leeyihiin waxay tahay annagu in aan isku mashquulsannahay xasilooni darro siyaasadeed ee haysato dagaalo dhexdeena ay ka socdaan shabaab maalin walba ay ummadooda waalahooda ay qarxinayaan ee leynayaan annagiina xasilooni darro siyaasadeed ee na dhex taalo intaas hadday jirto dalalkaasi dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo security iyo ciidan ahaan waa nooga hormarayaan waana nooga tagayaan sababta waxay tahay intaan dib ku jirno xasilooni darro aan ku jirno beesha caalamku waa nala joogayaan dhaqaalaha sheegaysaan oo intooda badan aanan arag waa isticmaalayaan dhaqaalahaas kullina waxay soo marayaan dalalkaas markay soo maraana waxay isticmaalayaan bunuugtooda bangiyadooda waxay abuurayaan shaqooyin canshuuray ka qaadayaan ama fiisiya ka qaadayaan dhaqaalahaas yimid oo dalalkaas ku soo hormaray shaqo abuuray u tahay dadka u shaqeeya maxaan ku raahdaa NGO-yada dhanna waxay degan yihiin meelahaas degan yihiin guriye ka gateen ama guriye ka degan yihiin ama hoteelada ka degan yihiin lacagahaas haddaan xasilano waa joogsanayaan saas darteed dalalkaasi dan uguma jirto inaan anagu isfahmno oo aan heshiino oo Soomaaliya degto waxay ku waayayaan billions of dollars ku waayayaan saas darteed haddii aysan iyaga toos ugu jirin waa ku faraxsan yihiin inaan saxiixaysano